موريان منهن بارة منهن قارقان أنا قايا سوق بتي ركيس وسارية هاي كيش لقى مدتشين شفت منهن أنا حولها يقاتين مقالة دان والله بالغيستي قاعديت كي شعب ترماي قبيلك هبريون سكاها بيتش مسسمع لها هذا جبريل تروها هذا إذا كي ماشي مري إذا كعارو بدنا وسعد يونس بورت لو سو غري waxaweyaan beebeecha hantidii uu ka haystay saacadan wuxuu ku hayaa laasa surad mayd buuqaad kaga soo qaadaa gaari kale oo ka buura waxa wadaniman Muuse Ismaaciil Ergaab gobolku soo galaa adiga gawaari baa laga qabsaday leen ka qabsaday markii dagaalka gaari waa la gubay sida warqada ku xusan xaq darrada iyo dulmiga lagu xukumay sida ku xusan gawaaridii la gubay ee dabka la saaray ciidanka maamulku gubeen hala soo cadeeyo warqada waa laga reebay hala soo cadeesto wabalin gurigu uu yimid hantidiisii gubay wala waan gubay ana dabka saaray hala soo cadeeyo baa warqada lagu soo qoray waxa kale oo jirta $22,000 $907 warqad ku soo sifneeyay iyo labada gaari aniga shakhsi ahaan hanti fara badan oo aan dhaar uga tagay oo qalabkii hoose ah oo aan dhaar uga tagay baa jirta in aanan cadeyn karin tirada inta leegto aan ka tagay magaalo ahayd meeshu dhisan waxa sababtan keenay baan sheegaya beebeeche waa nin maamulka Soomaaliland u shaqeeya waa marayniska badda Soomaaliland waa taliye ku xigeenka marayniska badda Soomaaliland laasa surad buu ka tirsan yahay maamul kasta oo SNM ka yimaada wuxuu soo taagaa laasa surad bara saabka gobolka sheeganaya gobolka shalay doraato wuxuu joogay laasa surad waa taliska lagu casumeeyay taliskii hantidayadu taalawi beebeeche wax ka qaban lahaayeen maamulkaasina shirka isaga faraa la galay cid kalena ku eedayneen beela daaroodan lagu anjarfaynayn maamul Puntland baan faraa la gelin wixii macnaha iyadoo dulmi wixii lala hoostigay maamulka wixii lala hoostigay waxba waa ka qaban waay wuxuu noqday reer shaad gashan beebeeche hantidana anagu boob doon ma nihin xaqi aan lahaa antida tan hadda maxaad marka ku sameynaysaa go'aan kaaga gaaray markaad rabtay 40,000 iyo dheeraada aniga ayaa ga maqan hantideedina xoolo maamul bay gacanta ugu jirta shacab shibil xitaa inteeda badan waa ka madax banaayeen maamul inteeda badan maamul bay gacanta ugu jirta waa nimankii meesha gubay waxna lagama weydiin mas'uuliyadda meesha anaga iskale shidan gudoomiye shidan baan cidii doonta ha hadasho waxa weeyaan waxna lagama weydiin shidan wixii ka dhacayna lama weydiin xisaabaa la soo qortay sharci darrada iyo islaamnimada xumada ka jirta meesha iyo maamul xumada ka jirta waxa xaqiiq ah anigu ninkii xabad ugu horeysay bilaabatay cidii la soo wararo hantideeda iyo gurigeeda loogu soo galay baan ahaa oo hantidiisa maqraanti baa ka tiin guriyaha iyo foornooyinka iyo gaadiidka la isku dulgubay marag baa ka tiin gurigaasana loogu soo galay qalcadda yar aanu gubnay marka dambe cidii deganeyd odayaal baa joogay cariishna waxa uu yaalay saad hartiisa iyo maamulku oo ka dhargsanay waxa meesha yaalay warqada waxa ku xusan 12 qof oo ganacsadayaal oo dumar leh ma joogin kutub jaamac quraanaan iskaga bixiya xabadu markay bilaabatay oo dhimashada iyo dhaawac u dhacay inaanay joogin oo deganeyn oo ka ganacsanayn aniga kutub jaamac quraanaan iskaga bixiya dadka lacag soo qortay waa dagaalkii labaad ma aad sheegaysaa bay leeyihiin dagaalku markuu qarxay waxa deganaa odayaal baa joogay meesha warqadan xukunka meesha ka soo baxdayna waxa ka muuqata 12 qof oo ganacsada ah si loogu ekaysiyo magaalada la deganaa meesha oo ka soconayay ganacsi iyo nolol population deganaa waa siyaasad SNM gaar ah waxa weeyaan dumarkaas aan deganayn rag lacagta loo soo qoray baan deganayn oday baan garanayaa haddaan dambiga iska dhowro sigaar wax ku gadgadi jiray alaab haystay faray la dhaho oo urur suga ah odagaasina fidmadu markay soo xoogaysatay oo qarax faraha kula jirtay wuu guuray isagay reerkiisa islaantiisa joogtay ciyaal u dhalay waaba guuray maqanu ka aha waa garta hadda adiga alxaasil maanta hantida dadka adaa gacanta ku haya saacadana taagan yahay hantida tanboobtag meehi haye maxaa go'aan oo ka gaaraysa hadii waxaaga aweed ama lagu soo jawaab waayo Soomaaliland ka soo jawaab weyn hantidan haddaan kala hadlo anigu nin mooriyaan oo dadka boomeehi waxa weeyaan hantidan xaqaygii oo maamul iyo qabaa'il inta la isu tagay duudsi ku jira khasaare kala jira dhimasha jirta ku ekaan mayso intan oo kaliya ku ekaan mayso dalaga ati Usmaan ku intan ku ekaan mayso khasaaraha wixii yaala ee tabayaan SNM ay tabayso oo dhani jawaabteedu way dhacaysaa
xal haddaan laga helin arrintaa gaadhigan iyo hantida saaranna boob uma aanan soo kaxaysan hantidayda waan soo kaxaysanay haddii hantidii xal baan ku raadinaynaa haddaan boob tagnahay isma saarnaadeen ma rarnaadeen halkaa kuma haynin gacantaan weli ku haynaa xal haddii laga waayo jawaab laga waayo cad waxa weeyaan taayadii waa la bililaqaystay waa la wata waa la cunaya waa lagu ganacsanayaa maamulkuna waa ogyahay indhuus ka soo ridaya sidii noocii un bay baxaysaa noocii taayada loo isticmaalay bay u baxaysaa